ciidamada ammaanka ka howlgala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa maanta joojiyay banaanbaxyo ay dadka ku nool magaaladaasi ku taageerayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dad u badnaa caruur iyo haween ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Boosaaso iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay ku taageerayeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse wax yar kadib waxaa ku soo baxay ciidamada ammaanka magaalada gaar ahaan kuwa booliska oo kala eriyay dadkaas. Intaas kadib Puntland faahfaahin kama bixin sababta ay u hor istaagtay dadkaas dhigayay banaanbaxa nabadeed ee lagu taageerayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale ilaa hadda lama cadeyn cid soo abaabushay banaanbaxaas dhicisoobay. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo aan weli wax xal ah laga gaarin khilaafka gaamuray ee hoggaanka Puntland iyo dowladda federaalka, waxayna madaxweynaha Puntland gaar ahaan madaxweynaha Deni uu dhowr jeer ku eedeeyay madaxweynaha dowladda federaalka inay faragelin ku hayaan arrimaha gudaha Puntland. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa shalay ka dhacay banaanbax nabadeed ee lagu taageerayay hadalkii madaxweynaha Farmaajo ee ahaa in Muqdisho matalaad ku yeelato golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdi Cabaas, Cabdi Olin, Radio Wadani, TV.